السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام عقيارته وحان ربي إن الأسود دينورته أو أن ما أنت شرحات قابن كبحيه محوية هاي الشيسك إس أفقرت كأه صوماليا إيه كيا دحمر. أرتي الشيسك إن مدة سوج أرنتان قرشهان الشيسك يدين قرشها كان كيا إن مدة إلى الرفرسي. وحي الله استكتي دولتي عبد الله يوسف دولتي عبد الله يوسف الواكسودي. شريف شيخ شريف iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ninkii la oranayay cumar cabdirashiid ayay Kenya la hoos timid dowladda Kenya martiqaad ka bixisay gogasha idaa dhigtay 7 bishii Afraad 2009 waxaa heshiis lagu gaaray is-afgarad ah in badda Soomaaliya iyo Kenya waxaa la isku afgaraha in xuduudda u dhaxaysa badda iyo badda xadka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa xadkaas in uu yahay mid qaldan oo qaloocan in arintaas iyada ah inay dowladda Kenya ay raalli ka ahayn Soomaaliya isku afgartaan in arintaas dacwadeeda la geeyo qaramada midoobay oo falaartan qaloocan ee dhinaca Kenya soo aadaysa kor loo leexsho oo baddu muran gasho ayaa waxa ay tahay waxa la isku afgarahayo horta is-afgaradka la diin sheegay horta waa kaas heshiiskii markuu dhacay 7 bishii Afraad oo dhacay 2009 waxaa lagu ballamay 13 April in la geeyo United Nations oo la yiraahdo sharciga xalinta badaha waaye annaga iyo Kenya badda ma la xadin karo maadaama muran oo jiro waxaan rabnaa arinta inaan ka wada xaajoono taas aan isku afgarana way macnuhu halkaas markay marayso ayaa waxa la yiri loo geeyo shirka golaha ammaanka dowlad kasta hay'adaheedii garsoorka iyo sharci-dejinta ka soo dhaadhiciso inta aan la gaarin 13 baarlamaankii Soomaaliya oo 550 ka xildhibaan ahaayo kiishinaha ka badnaay ee Mooriyaan Garreedi iyo kuwii bambada tuuri jiray iyo hogaamiye kooxda isbaarada u tiilay ay kamid ahaayeen ayaa diiday ogaada hadda nimankaas nama fiican ay ahaayeen ogaada nimankaas niman waxay ahayn wadaniyiina markii loo fiirsho kuwan bamba Turki iyo Mooriyaan Garreedi iyo hogaamiye kooxda isbaarada magaalada u tiilay waxay dhaheen sharcigan waa baadil badeena lagu dhici rabaa badeena afgarad gali ma karto murna gali ma karto raal hada baarlamaankaas cod aqlabiyada bataqana ku laaday waxaan la yaabnay maalintaas waxa su'aal la weydiiyay Sheekh Shariif la weydiiyay waxa li baarlamaanka waa diiday wuxuu yiri danti aan ka lahayn waa ha gaarnay bal dhageystiyan danti aan ka lahayn waa ha gaarnay cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu anigu ra'iisul wasaaraha uu saamray ra'iisul wasaaraha wuxuu anigu qolo ajnabiya oo Axmed Walda Cabdalla ay ku jiraan waxay yiraahdeen waxa la gaaray deadline-kii mataqaana heshiiska xalinta badaha waqtigooda la gaaray marka waa inaad Soomaaliya iyo Kenya aad ka sameeysan wada hadal bal ilaaha idinku dhaarshay baddaas oo Kenya hadda ka hor ay bad ku darsatay TNFD ay haysato oo waagi aadan caddi waagi Cabdirashiid iyo waagi mataqaana Maxamed Siyaad Barre saddexdii dawladood soo martay dalkan aanan dan Kenya bad ay sheegan aysan jirin dadka maanta u sababa badan inay muran galshaan ee soo taagan ee rabaan inay musharaxiin noqdaan ee rabaan inay xil qabtaan ee baddi Soomaaliya sidaas muranka u gashay xoogaa dhaqaale yar iyo guriga laga siiyay wallahi guriga laga siiyay wallahi alcadiim guriga laga siiyay xoogaa dhaqaalaha ku qaataan in qabiil loogu sacabtimo Soomaaliya ilaaha idinku dhaarshay ma wax fiican war haddii nimankaas aad taageertaan oo taageeraysaan wallahi hadday soo laabtaan dadka iyo guriyaha iska dhaafay cid kasta gadahayaan kii buuranba waxaa la saaray miisaan meeqa kiilo waaye iigad meeqa kiilo waaye iigad alla ay ugu rabeen in sheegay nimankaas waxay soo wadaan webiga weyn waaye waraan ka leexano dee haddii soo laabtaan qof kasta oo goof ay leedahay anigu goofkayga waxaa igu jiro uranium iyo mataqaana gaaska dabiiciga ciidan doona kullu shiiha taas waay hadda ka hor nin qaadiya loo yimid nin qaadiya oo tuula xukuma markaas ay shiiqow
dad beeraley ah iyo kuwo xoololey ah isdacweyha beeraleyda xoolihii intay yimaadeen lo'da beerta daaqday markaasay isdacweeyeen qaadigaa loo yimid wuxuu yidhi qaadiyow dadkan isdacwaa lo'dan ayaa beertan cuntay inaad u kala xaqa sartaa lagaa rabaa wuxuu yidhi waran ii keena warankiyaa la taagay wuxuu yidhi kuwa looda wato oo xoolaha islaameed cunay warankaas oo buuxa dhirir joog la-eg oo badra ah laga rabaa halkaas markay maraysa nin dadkii meesha jooga ka mid ahaa wadaadkii qaadigaha dhegta u soo dhowey markaasu wuxuu ku yidhi arshiiqow lo'daadiyaa wax ka cunta saas miya la jiifiyaano bannaan marka haddii la jiifiyo hal koombo badar ahaa mataqaana waranka qalin karta laakiin haddii la istaajiyo dee 500 looro haddii la keeno xataa buuxseen maayo warankaas boogta marka walaalkayn madaxweynihii hore sheekh shariif waxaa waaye la joojiyaano bannaan la jiifiyaano bannaan waxaan ugu dan leeyahay waxay tahay bal warkayga soomaaliyey anigu warkayga meelu leeyahay iskama hadla beenna ma sheego qof weynu ilaah ka baqaysanahay sheekh shariif waagii maxaakiimta waxaa jiray tarbuunka la isugu taga maalin maalmaha ka mid ah waxaa lidhi beecaa lagu gala waxaa beeca lagula gelaa oo beecadii rasuulka iyo tii saxaabada koobi ah la soo qadaa koobi moogta waa koobiya saxaaba meesha ma joogaane shayaadiina joogtee koobigaa la soo qaatay waxaa layidhi marka beecadii cumar bin khadaab iyo tii abubakar sadiq camala beecaha gelaynaa waxaa beeca lagula galay sheekh shariif inuu shareecada islaamka ummadda ku dhaqo ku hoggaansho mataqaanaa qof kastana xaqeeda qof kale uusan ku xadgudbin oo kitaabkaas qur-aanka ah laga leexan dhegaysta warkayga dhegaysta saas markay tahay oo shareecada lagu baaqay in dalkan diinta islaamka lagu dhaqaayo xaashaa lilaahi qof kastoo islaama raalli ka tahay in shareecada islaamka lagu dhaqo waa la farxo niyaddaa loo dhisatay waxaa dhacday dadkii inay dacwo bilaabeen oo maxaakiimtii maxkamadihii ay tagaan oo yidhaahdaan war hantiyaa naga maqan hanti guurtaa iga maqan dhulaa layga dhacay gurigaa layga haystaa dacwadii la bilaabo ayagoo raba maadaama loogu sheekeeyey kitaabkii qur-aanka lagu dhaqmaa dacwadiisay u socotay maxkamadu waxay lahayn golaha shuurada oo dhowr iyo sagaashan ka kooban oo la dhihi jiro golihii shuurada oo sida baarlamaanka kale ah oo cod aqlabiyad mataqaana go-aanka la gaaraayo ay ka shuureeyaan 90 iyo xooga ay ahaayeen 68 ka mid ah alla igu og kiiskii dacwadii dhulka soo galay oo maxay ahaayeen golaha shuuradana waa yihiin 68daas guryo bilaqahay degan yihiin wallaahi alcadiim liiskooda iyo magacyadooda idin hayaa waa soomana inaan been sheegin waa la tasto waxaa la warnimo yahow dadkana kitaabka qur-aankan ugu sheekeen aan ku dhaqanne bahashana waana soo gashee annagaa laftigeena dacwadina soo gasho waa taqaanaa guriga hebel iyo guriga hebel iyo guriga liqliqatay iyo guriga heblow iyo aan degannahay yaa iyo guriga cali sabatar iyo kii morgan iyo wasna qaanaa xarfaanay maxaa talaa aan u tagno wadaadka u tagno dhan waxa naga jooji sheekh shariif aa loo yimid sheekh shariif salaamu calaykum annagaa shalku dooran meeshu keeno kowdhe waxaan kaa rabnaa arrintaa naga jooji maxaan sameeyaa waay shir jira qaba waxaad tidhaahdaa maadaama dacwadihii dhulka iyo tii mataqaantida muguurtada ah ay lagu fara bateen dad qobraha xul saarina waxaan rabnaa inaan maxkamad gaara oo ka shaqeysa arrintaas kaliya inaan mataqaana dhisno inta laga gaarana waa la hakiya dheh habeen arbaca allah igu og awraan usoo ka hadla waa la hakiyey dacwadii dhulka iyo tii muguurtada ah waxaan rabnaa in si mataqaanaa weyn loo faaqido dad qobraha xul saarno halkaasaa lagu xiray dacwadihii kitaabka qur-aanka aaway alla ka cabsiga aaway diinta lagu dhaarta aaway kadibna ummadda waa la jihey waxaa loo jihey dagaalkii iidaale etoobiya aadayna etoobiya iyo waxaan kusoo dukaynaa addis ababan kusoo dukaynaa ilmihii lagu soo xasuuqay ilaaha idinku dheershay soomaaliya war wax kasta been ha laga sheego laakiin kalaamkii ilaahay kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii nebiga axaadiista nebigaan been ka sheegaynaa oon barna ku dhaqmaynaa barna aan inkiraynaa oon xaqa ummadda ku duudsihaynaa ilaaha idinku dhaarshay ma dembi ka weynahaa jira nin kitaabkii barre qaatay barre ka tegey oo xaqii uu ku dhaartay kalaamkii ilaahay uu ku dhaartay ka been sheegay
ما أنت رمنا إن دورنا مرك سبحانك يا إلهي أنا كم جر بأنك الشيء ما شخص يفهم أوجيه والله وأوجيه أرنتاس إني دعدي أو لا هوس قلي أو أسوق رالي كأهاي وأوجيه إن لحن يستقال قفوضة لحن يستقال قفوضة قلها شرنا يقرب بالغد جنا أوجيه ساس اللي جوا جوا أوجيه إلهي هذا كل شيء معدي على ده كتاب كم رقم منا هي بيع عن قلينا لحظة الساس واي شقدنا واساس الصومالي إذا كان الربا واحد بدل أنك عقنا مرقاتك الجوجو نور أنك حمران جوجنا وأنا جوجنا وأنا جوج دونا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.